Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawo Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. Haddii aad hore inoola joogtayna fiidiyowgan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. waa qaybtii 15aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood. qaybta 14aad sheekada waxay inoo joogtay Xaaji Maxamed wuxuu aad u suulugay sida foosha xun oo wax loo maamulay, wuxuuna fikradiisa ku muujiyay hees qaabkeeda dhismuhu yahay alifka ya, wuxuuna yiri yaabayay Soomaaliay dadku waa kan yaacaye hadalkii yaqiin ahoo aan la yeelin baan arkaa, toltol waan ka soo tagno xorriyaan tabteed hayne ninkii tiisa waayayo ulla tooxan baan arkaa, jamhuur dowlad noo ahoo baarlamaanka joojinay jil ekaysi baan rabnee naf jeclaysi baan arkaa, khilaafkii Soomaaliya qaribaad buu noo lahaa raggan qaas u dooranno isqiyaanayaan arkaa, farxaddii Soomaaliay fahmadeedu daad ahayd raggii foolhoraad noqdee farkutaag leh baan arkaa, quruuntan ka qayb galno in qabiiladii qowmi diiday baan arkaa, mahad baa inoo eko macdan dowlad baan helne rag muraayadii jabto madmadow leh baan arkaa, hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalaygaal uheeliyaal naga hooshayaan arkaa, yaryara weynaba dowladdii isyeelashaan rabnee yeedda kii la gaarayo ku xabsadaan arkaa. intaa kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey tusaale ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladu u leedahay horumarinta nolosha ummadda, laakiin oo asaga dareenkiisu ku qotomay amaba u arkayay umuur miyiga u gaar ah, wuxuuna yidhi weligiin ma aragteen wiil reer kumadi ahaa oo loogu aaranin oosan dilin kana warhayn meel lagu dilay qabiilnimo daraaddeed, weligiin ma aragteen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isjeclaaday lana yidhi isma guursan kartaan maxaa yeelay isma geydaan qabiilnimo daraaddeed, weligiin xoolihiina ooman ceel biyima idinkaga diiday nin aan markaas u baahnayn oo aan waxba ku qabsanaynin qabiilnimo daraaddeed, weligiin ma aragteen nin Soomaaliyeed oo Soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annagaa iska lehe qabiilnimo daraaddeed, weligiinse ma aragteen iyadoo doorasho siyaasi ah la galay oo nin raganimo ee cilmi isku darsaday ma dhacday manala doortay nacas jaahil ah qabiilnimo daraaddeed. intoosan waa suga dhammayn tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa qadadii la keenay, si weyn ayay dadkii ugu qushuuceen erayada dareenka leh oo uu waasuge ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabiilnimo ka aloosnaayeen intii cuntadii loo farxalanayay, waxaa si xiise leh dadku ugu bullamayay tusaalooyinkii waasuge, islamarkiiba dirir ayaa inta uu saacaddii fiiriyey raadiyihii daaray, waxaana ka socda barnaamij ku saabsanaa qoridda afka Soomaaliga, waxaana markaa gabay ka tirinayay Sheekh Cabdiqaadir Cabdulaahi asagoo lahaa afku qaayo weynaa kolkii qorista loo yeelay, fartu qiimo badana kolkii dhuubka laga qaaday, qalqallooc xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday, sadarradu qurxoon kolkii qalinka loo fiiqay, waasuge iyo warsame inta ay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qoridda afka Soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen, sida khudbooyin gabayo iyo heeso intaba, raggii ee iskuweelka wax ku cunayeen u mariyey gabay oo horay ugu maqlay raadiyaha kaasoo uu tiriyey Cabdulaahi Raage oo ahaa 22 aamustiyo shaqal irmaaneeya amran iyo tilmaam iyo gudbi aade iyo jooji isku daray xiriiriyihii falgaaba erayadeeniiye ebyan iyo haddaan magacoyaal ku arka joornaalka mar haddii afkaygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaasigii ka baxay lagu ogoontoobay abaal waxaa leh nimankii farta soo abaabulaye amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureene afkaa qalaad iyo maxaa eragta ii dhiibtay anaa macallimo rabaa dad loo furo iskuulaade. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 15aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.